السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشكلني صباح نمو كي قلب نمو لبضبا هدوا برنامج كعاوة وحينو كفا قدي دونا شيكالا يابلي او كسو كورورتي ارنتا ودنكا سوريا حالدو هالكيبي مريسا عاوة محال لغو كلاهويدي سوريا iyo إسرائيل وعشو كالي برنامج كان دي كوسو قدبين دونا غزة او ورلا يابلي قلبتو مركالي لغو هلي نمكي نكتلوغا ساري intaan suuriya ku maqnayn reer gaza waxbay dubteen nimankan caadi maaha maalmahan sheeko la yaab leh saraayal qudus oo gooni u adeegatay iyo waliba kataa'ibul qasaam oo iyaduna gooni u adeegatay laba war soo kala saartay caawa aynu barnaamijka ku faahfaahininaa qodobadaas aynu barnaamijkeena caawa idinkugu soo gudbin doonaa inta aan ku jirnana barnaamijkeena saan hore idinkugu sheegay laba arrimood oo muhiim kaga hadli doonaa gaza oo xaalad cajiib ah iyo waxyaabo la yaab leh galabta mar kale ay ka dhaceen iyo arinta Suuriya iyo Israa'iil halka ay wax marayaan aynu barnaamijka ku faaqadeynaa marka ugu horeysa waxaanu ka hormaraynaa gaza sheekadeedu waa laba qaybood nimanka la yiraahdo Saraayal Qudus waa qolada militariga u qaabilsan jabhadda la yiraahdo Jihaadul Islaami kuwaas shaqa ay qabteen iyagoo si fiican u adeegtay video iyo alaab iyo waxbay keeneen al-qasaam iyaduna sheeka la yaab leh ka sheekaysay wixii maanta dhacay haddaba marka labada waxaynu ka hormaraynaa Saraayal Qudus haddaba telefishinka Al-Jazeera ayaa caawa wuxuu qoray sheeka uu leeyahay jabhadda la yiraahdo Saraayal Qudus waxay baahiyeen muuqaalo muujinaya iyagoo gubaya taangi ay leeyihiin ciidanka gumaystaha dhanka kale Israa'iil waxay qiratay in mid ka mid ah ciidankeeda uu ku dhaawacmay weeraradii maanta dhacay haddaba warbixinta Saraayal Qudus way sii socotay waxa leeyahay garabka militariga ee Jihaadul Islaami maanta Arbacada waxay sheegeen inay soo bandhigeen video iyagoo gubaya taangi meel markaa dhanka bari ku taala xaafadda la yiraahdo Xay Zaytuun taasoo ku taala bariga magaalada Gaza haddaba ciidamada gumaystaha ayay waxay sheegeen iyaguna inay uu ka dhaawacmay sida warbixinta lagu sheegay mid ka mid ah ciidankooda oo waliba dhaawaciisu uu halis yahay haddaba dhanka kale muuqaalka waxaa ka muuqanaya iyadoo dhulka lagu xabaalayo miino aad u qaraxmaysa oo u xoog badan oo ay markaa farsameeyeen muqaawamada taasoo taangigii cirka la gashay sida la sheegay Xay Zaytuun meel la yiraahdo ayaa taangi lagu gubay waa lagu galgashay Israa'iil waxay sheegeen hal askari anaga dhaawacmay laakiin marka waxay leeyihiin video waxa ka muuqanaya iyagoo sidii beertiyo kale u abuuraya miinadii shadiidul infijaar Allah marka miinooyinka isticmaalaan gacana loo taagay qaraxoodu qarax caadi ma aha taangiga markuu ku istaago cirkaas la aadaysa taangigaas marka ay nimanka iyaguna nagta ka saareen oo ay burburiyeen haddaba marka waxa iyana warbixin soo saaray jabhadda la yiraahdo kataa'ibul qasaam al-qasaam waa garabka militariga ah ee ururka Xamaas haddaba iyaguna waxay leeyihiin annaguna siday tahay ayaanu galabta u adeeganay nimankii nagta ka saarnay leeyihiin haddaba marka aan idin tuso wararkii ugu dambeeyay Al-Jazeera ay ku qoreen kataa'ibul qasaam garabka militariga xarakada muqaawamada islaamiga Xamaas maanta Arbacada iyaguna waxay sheegeen inay bartilmaameedsadeen dagaalyahankoodu gaari kuwa askarta qaada ah iyo laba ka mid ah makiinadaha dhulka qoda ee militarigu ay isticmaalaan oo nooceedu ahaa D9 waxaan ku dhufanay yiraahdeen laba gantaal oo nooca la yiraahdo Tandum iyo midda saddexaad oo aanu la helnay gantaalka cajiibka ay garabka laga gano la yiraahdo Al-Yaasiin 105 al-qasaam waxay sheegeen inay weerareen gaadiid dagaal oo ciidanka Israa'iiliyiintu ay haysteen shaarica la yiraahdo ama wadada la yiraahdo Al-Mandar taasoo ku taala xaafadda Ash-Shujaaciya bariga Gaza waxaana la sheegay in weerarkaas uu ahaa mid aad u culus marka waxay leeyahay nimankan sidaas aad u adeeganay maanta oo Arbacada gelinkii dambe waa feesteen nimankan maalin walba iyaguna dad bay naga dilaan iyaguna meydad iyo wax dhaawacma iyagoo watee baxayaan yiraahdeen haddana waxyaabaha la yaab kale waxa ka mid miina dhulka haday dhigaan
baabuurtii miinabaarka iyo wixii ay wateen oo dhan maba arki karaana lagu leeyahy wuu ku dul istaagaya waa la kacaysaa meesha mucjiso kalaa socotaa leeyahy marka xaalku caadi maaha gantaalka garabka laga ganayo horaa idinkugu sheegay allaahuma sadidee leeyihin bas ilaahayow ku beeg ku toosi mana lala gafaayo nagtaa laga saaraya marka sheekadaas waxay ahaayeen wararkii ugu waaweynaa ee kasoo kordhay dhanka iyo Gaza ayaa wixii dhacay maanta ayay ahaayeen labada jabhadood ayaa wararkaas oo kala saaray Israa'iil lagama hayo waran ahayn hal askariya galabta naga dhaawacmay dagaaladii dhacay wax kale oo wara oo ay warbaahinteeda ka sheegeen dagaalka ma jirto arinta Suuriya ayaan u gudbaynaa Suuriya sheekadeedii maanta barnaamijkii galabkan aad uga sheekeeyay nimanka dhibaatada haysata Suuriyaanka Israa'iil sida ay ugu galgalanayso carabtii midba mid u weerarayso say rabta ka yeelayso waatay weerareen wasaaradda gaashaandhigga xaruntii hoggaanka ciidanka madaxtooyadii horteeda wax ku dhufteen maana isaga baashaalayeen wax iska kaana celi kara ma leeyihiin oo caraba marka way ku tumanayaan marka maxaa dhacay marka meeshii la isku haystay nimankii Druuska ahaa ee Yuhuuddu ay la safneed iyo nimankii Sunniga ahaa magaaladii ay ku diriirsanaayeen maxaa marka lagu heshiiyay dagaalkii meesha ka bilowday horta waxa la soo saaray caawo 14 qodob ayaa lagu heshiiyay nimankii wadaadkoodii ugu sareeyay Druuskana uu hadlay wuxuu yiri waa ku qanacsanahay waxyaabaha lagu heshiiyay waxa kamid ah in xabad joojin la sameeyo in maaragtay dadka meesha degan la wada hadal siiyo oo khilaafka nimanka Sunniga iyo Druuska u dhaxeeya la xalliyo ciidamada dawladdu inay sii joogaan ammaan ahaan magaalada barar control ay ka sameystaan si aanay u dhicin beleeleqo iyo dhibaato iyo guryo iyo wax la jabsado iyo waxaas aanay u dhicin waxa soo kale ku jira odayaasha Druuska inay qayb ka yihiin gudida la magacaabay ee dawladda iyagu ay ka wada shaqeyn doonaan maadaama magaaladu ay ku badan yihiin dadka Druuska ah Sunniguna ay degan yihiin magaalada in yar oo kamid ah iyo tuulooyinka u dhow ay degan yihiin marka hawsha marka in iyaduna halkaas la gaaray oo dhinacyadu ay ku ballameen in la ilaaliyo xabad joojinta dawladuna ay marka ku dhex jirto Druusku siday ogolaadeen marka qodobadaas marka waxa leeyahay waxay ahaayeen qodobo aad muhiim u ah dhanka kale marka maanta waxa dhacay dad Druus ah oo Yuhuudda Druuska ah ayaa xuduudka Suuriya xoog ku soo galay ciidankii xuduudka jooga wax celinaya iska dhigeen laakiin 200 oo qof oo Druus ah soo gudubtay arrinka marka ceeb weyn ku noqday Israa'iil iyo fadeexad adduunka oo dhan aqeeliyay waxa la yiri dadkan Druuska ah oo aad xuduudda ka soo fasaxaysaan dagaalkan inuu socdo iyo mushkiladan qayb ah ka tiin Netanyahu marka nimankii Mareykanka ku qayliyay caawa marka hadal soo saaray hadaba marka aan idin tuso Netanyahu warka uu soo saaray Netanyahu wuxuu yiri waxaan u digaynaa Druuska Israa'iiliyiinta ah inay ka gudbaan xuduudka Suuriya arrinka iska ilaaliyo leeyahay arrintaas waa khatar dhanka kale wasiirka gaashaandhigga Israa'iil oo isaguna hadlay wuxuu sheegay walaalaheena Druuska ee reer Israa'iil suuragal ma aha inaad maaragtay ku kalsoonaa weysaan ciidamadiina kuwaasoo ilaalinaya walaalihiina Suuriya ku nool muujada Netanyahu wuxuu leeyahay meesha lama aadi karo kaaskii wasiirka gaashaandhigga wuxuu leeyahay ciidankiina ku kalsoonaada walaalihiin aad rabtaan inaad u gurmataan Suuriya ciidankaana ku filan adigu meeshiina joogay waxa laga celcelinaa Druuskaas inay gudaha Suuriya inta galaan nimanka Sunniga muslimiinta la dagaalaan arrinkaas ayaa celcelinaa sheeko marka la yaab loo waaye oo marka meesha iyaduna ka taagan qadar xayisiisa kadib waxaan galaynaa aayatullaahiga Iiraan oo la sheegayo inuu maleegayo qorshe uu yadda kaga hormari doono maalmaha soo socda ama waqtiyada barnaamijka aynu marinaa qaybtan waxaynu kaga hadlaynaa Iiraan iyo Israa'iil tan iyo markay nagta iska saareen dagaalkii 12 maalmood socday kadib waa la isku booteeyaa midaan kugu dhigo hubaan keensaday kaasaan keensaday aniga waa soo socdaa waxaas ma sameey kartid tii horaadan weli iloobin alaabtaas media waa ka socotaa laakiin hadda sheeko kale oo tii ka duwan ayaa marka la leeyahay Al Jazeera marka waxay leedahay khabiir Israa'iili ah oo dhinaca militariga wuxuu sheegay
khamenei ninka la leeyahay waa ayatullaahiga iiraan inuu markaa doonayo inuu aargoosto oo markaa iyadoo sidoo kalena laga baqayo waqtigiisa argoosiga inuu soo dhow yahay dagaalkana in dib loogu laaban doono. haddaba marka warbixinta way sii socotay waxaa leeyahay joornaalka la yidhaahdo Israel Hayom ayaa wuxuu sheegay in argoosi uu samayn doono hogaamiyaha diiniga ee Iiraan Ali Khamenei argoosigaasuna uu soo dhow yahay. haddaba waxaa laga digayaa in hogaanka Iiraan ay markan qorsheynayaan in dagaal ay la galaan Israa'iil cusub iyadana uu doonayo ayatullaahiga inuu isagu kaga hormaro. waa argoosanayna ilay markii hore yadda intana looga hormaray saraakiil badanna laga dilay. markan ayatullaahiga wuxuu leeyahay inaan annaguna markeena ku hormarno waay. joornaaladii Israa'iil ugu afka dheeraa Israel Hayom iyo saraakiil sare oo dhinaca militariga ee Israa'iiliinta ka hadlay waxay leeyihiin ayatullaahi waa nagu soo maqan yahay ogaada nin joogsada ma ahan ilaa intiqaam uu sameynaya